I have one question. In the Surah Al-Imran, verse 50, it says to follow the teachings of Jesus. Why doesn't anyone do this? walaashay magacaada ma noo sheegi kartaa? Chastity? su'aasha walaashu waxaa weeye in qur-aanku ku sheegay suuratu Ali Cimraan suuradda 3aad aayadda 50aad inay waajib tahay inaan raacno amarrada Masiix Ciise calayhi salaam. waxaa kaloo jira aayado kale oo badan kuwaasoo sheegaya inay waajib nagu tahay inaan rumayno Ciise Masiix. walaashay aan kuu caddeeyo, islaamku waa diinta keliya kirishtaanatiga kama hadlayo ee ka dhigaya rumaynta Masiix mid ka mida tiirarkiisa. muslimku muslim maaha ilaa uu ka rumeeyo Masiix Ciise calayhi salaam. waxaan rumaysannahay inuu yahay mid ka mida rusushii ulul casmiga. waxaan rumaysannahay inuu yahay Masiix. waxaan rumaysannahay in dhalashadiisu ahayd mid mucjiso ku dhisan, ma lahayn aabe balse wuxuu lahaa hooyo. masiixiyiintu xitaa arrintaas ma rumaysana hadda. waxaan rumaysannahay kuwa dhintay inuu alle idinkiisa ku noolayn jiray. waxaan rumaysannahay dadka cudurrada indhoolanimada ay ku dhacaan iyo baraskuba idinka alle inuu ku dawayn jiray. muslimiinta iyo kirishtaanatigu hal meel ayay walaal ku socdaan, laakiin midkood baa isweydiin kara waa xaggee meesha lagu kala leexanayo. meesha lagu kala leexanayo walaashay waxaa weeye kuwo badanoo kirishtaana waxay leeyihiin Masiix Ciise calayhi salaam ilaahnimo ayuu sheegtay. wuxuu sheegtay inuu allaha sareeye yahay. haddaad akhriso baybalka walaashay lagama helayo cibaaro cad baybalka dhammaantii halkaa uu ku leeyahay Masiix Ciise calayhi salaam nafs ahaantiisa ilaah ayaan ahay caabuda. hadday u suurtagelayso qof kastoo kirishtaana inuu cibaaro cad oo cad iiga helo baybalka taasi oo uu Ciise Masiix calayhi salaam ku sheegayo inuu yahay ilaah uuna leeyahay caabuda, waxaan diyaar u ahay inaan maanta galo kirishtaanatiga. kama hadlayo si bedel ahaan muslimiinta kale aan ka ahay. xaqiiqatan haddaad akhriso baybalka waxaa lagu sheegay Yuuxana jabtarka 14aad faqradiisa 28aad Ciise calayhi salaam wuxuu leeyahay ilaahayga aniga waa iga weyn yahay. Yuuxana jabtarka 10aad faqrada 29aad rabbigaygu dhammaan waa uu ka weyn yahay. Matayos jabtarka 12aad faqrada 28aad anigu ruuxda alle ayaan shayaadiinta ku saarayaa. Gospel of Luke jabtarka 11aad faqrada 20aad shayaadiinta farta alle ayaan ku saarayay anigu. Yuuxana jabtarka 5aad faqradiisa 30aad anigu nafsad ahaanteeda inaan wax ka sameeyo ma awoodo. sida aan maqlay ayaan ka diindhiganayaa. diinteedu waa caadil, maxaa yeelay ma dalbanayo doonisteeda, waxaan dalbanayaa doonista Allah ee soo diray. qof kastoo dhahaya anigu ma raacayo doonisteeda, waxaan raacayaa doonista alle, waa muslim. nebi Ciise calayhi salaam muslim ayuu ahaa, weligeyna ilaahnimo ma sheegan. waxaa lagu sheegay camaladii rasuullada ama sifrul acmaal jabtarka 2 cadadka 22. raggiina reer banu Israa'iilow maqla oraahyadan. Yasuucu Naasri waa qof idinkaga caddeeyey xagga alle cajaa'ib iyo calaamooyin alle uu gacantiisa ku sameeyey ee dhexdiinna ah, sida aad og tihiinba adinkuba. Yasuucu Naasri waa qof xagga alle inkaga caddeeyey aayado cadcad, cajaa'ib iyo awoodo ilaahay gacantiisa ku sameeyey oo dhexdiinna ah. sidaa darteed annagu waxaan rumaysannahay Ciise calayhi salaam inuu ahaa mid ka mida rusushii ulul casmiga, laakiinse ilaah ma ahayn. waa taasi halkaan isku khilaafsannahay, gaar ahaan waxa ku saabsan tacaaliimtiisa. su'aashaada ku saabsan qur-aanku inuu noo sheegayo inay waajib nagu tahay raacitaanka Masiix Ciise calayhi salaam tacaaliimtiisa. markii uu yimid Ciise calayhi salaam caalamkan, yahuudda oo keliya ayaa loo diray, reer banu Israa'iil oo keliya. qur-aanku wuxuu si cad ugu sheegayaa suuratu Safa suuradda 61aad aayadda 6aad markii Ciise ibnu Maryam uu ku yidhi reer banu Israa'iilow waxaan ahay rasuulkii la idiin soo diray. sidoo kale suuratu Ali Cimraan suuradda 3aad aayadda 49aad rasuul loo diray reer bani Israa'iil. sidoo kale waxaa lagu sheegay baybalka Matayos jabtarka 10aad faqrada 5 ilaa 6 Ciise calayhi salaam waxa uu leeyahay wadooyinka ummadahaas raacina. waa kuwa ummadahaasi? yahuud ma aha, hindoos, muslimiin. wadooyinka ummadahaas raacina, magaalada saamiriyiintana ha gelina, balse aada axraac idaha guryaha reer banu Israa'iil ee lumay. isla risaaladaas waxaa lagu sheegay Matayos jabtarka 15aad cad faqradiisa 24aad waa uu u jawaabay, wuxuu ku yidhi la iima dirin ilaa idaha reer banu Israa'iil ee dhumay. haddaba Ciise calayhi salaam waxaa loo diray reer banu Israa'iil oo keliya. risaaladiisuna waxay waajib ahayd inay xilli kooban ku koobnaato. waa sidaas waxay sheegayaan baybalka iyo qur-aankuba. iyadoo jirta arrintaas walaashayda, haddaad akhriso baybalka ood si wanaagsan u dhuuxdo waxa uu Ciise calayhi salaam leeyahay. Gospel of Luke jabtarkiisa 2 faqrada 21aad Ciise calayhi salaam waxaa la guday maalintii 8aad. annaga muslimiin ayaan nahay, waana isgudnaa.
laakiin si badanaa kirishtaanatigu isma gudaan haddii aad leedahay raacitaanka tacaaliimta ciise calayhi salaam waxay kaa dhigaysaa kirishtaan iyo qof masiixi ah anigu haddaba waxaan jeclahay inaan dhaho aniga ayaa masiix ka raacitaan badan kirishtaanka kale nafsad ahaantooda waxaa lagu sheegay Baybalka buugga Efesos chapterka 5 cadadkiisa 18 ha caabina qamrada sidoo kale buugga mahmaahyada chapterka 20 faqradiisa 1 qamradu waa mid lagu jeesjeeso annaga muslimiin ayaan nahay qamrada ma cabno quraanku wuxuu sheegay suuratul maa'ida suurada 5 aayada 9 qamradu waa xaraan sida darteed uma dhawaanayno kulligaanba ma u dhawaanayno mujtamaca muslimka waa mujtamaca ugu weyn ee qamra ka fogaanshada ugu badan caalamka sida darteed marka la waafajiyo Baybalka waxa waajib inaan la cabin qamrada meelo badan oo kamid ah Baybalka waxa lagu sheegay inay waajib tahay inaan la cabin qamrada sifru laawiyin chapterka 11 faqrada 7 ilaa 8 sifru tathniya 14 faqrada 8 ashciya 65 2 ilaa 5 waxaan ka yaran 5 mar waxa lagu sheegay in xaraan tahay hilibka qanziirka ama doofaarka muslimiin ayaan nahay annagu ma cuno laakiin kirishtaanka badankood waa ay cunaan sida darteed haddii aad tahay qof kirishtaan ah oo raacsan masiixiisa calayhi salaam tacaaliimtiisii annaga muslimiin ayaan nahay annaga ayaa ka raacitaan badan ciise calayhi salaam kirishtaanatiga daliilo badan ayaan ku sii karaa walaashay markii la weydiiyey ciise calayhi salaam waa maxay waxa ugu muhiimsan tacaaliimta injiil mirqas chapterka 12 faqradiisa 29 waa iqtibaas luqadda cibriga macnihiisu waxa weeye israa'iilay maqla rabbigu waa hal ilaah oo kaliya annaga muslimiin aan nahay ma rumaysanin ilaa hal ilaah oo kaliya mooyee laakiinse badanaa kirishtaanatigu waxay rumaysan saddexalida ama saddex ilaah abka ama rabbiga weyn wiil iyo ruuxul qudus haddaba haddaad leedahay kirishtaanatigu macnaheedu waa raacida tacaaliimta ciise calayhi salaam annaga muslimiina ayaa ka masiixisan oo ka raacitaan badan tacaaliimta masiix kirishtaanatiga nafsad ahaantooda waxa ku suurtagal inaad u laabato canjalada isku ekaanshaha ka dhaxeeya islaamka iyo kirishtaanatiga taasoo ku siin doonta tafaasiil badan oo ku saabsan in annagu ka raacitaan badannahay kirishtaanka nabi ciise calayhi salaam waxaan rajaynayaa inaan su'aashaada ka jawaabay